السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شرفت بدن سو دhowaada waa walaalkii Maxamed Maare. Dhamaantii waynu ognahay waynu aragnay dhibaatada saacadii u dambeysay baraha bulshada ka taagan ama culays maaragtay gabadha walaasheena dhibaatada loo geystay cirdigeedii sharafteedii iyo karaamadeedii iyo gabadhnimadeedii iyo maaragtay qiimaheediiba lagu ciyaaray. dadka Soomaaliyeedna waxay iska noqdeen dad niyo aad nolosha uga dhacay. 90% dadka Soomaaliyeed waa dad nolosha ka waagi hore waynu ogeyn halka dumarka Soomaalidu ay ka taagnaayeen dhaqanka Soomaaliga iyo Soomaalinimada intaba. maaha markii koowaad dhibaatadani dhacdo. Caashe Ilyas baynu ogeyn, gabadhii Xamdi ee la kufsanayay dabaqa laga soo tuurayay baynu ogeyn, gabadhii Luul ee la gubayay baynu ogeyn. hadda maalmo yar ka hor gabadh 8 jira oo nin weyn guri ku haysto leeyahay ana qaba oo waa la siiyay oo baraha bulshada iyadana haysatay baynu ogeyn. tanna hadeeray soo dhacday. niyo dhibaatada qofka geysta haddaan isaga laga jarin, haddaan isaga inta la soo qabto nolosha lagu dilin, la silcin, la ciqaabin, tii Ilaahayna meel u taalo ifkana lagu sii ciqaabin, waxani wax joogsanaya maaha. dhibaatadan ma aha wax hadda dhacay oo kaliya. boqolaal iyo kumanaan gabdhood oo Soomaali ah ayaa muuqaalo laga duubay ay qaawan yihiin, kuwo iyagoo la qasbayo oo baraha bulshada la soo dhigay oo nolosha laga riday oo ooyeen oo dhibaatoodeen. dadka Soomaalida iyo culimadooda iyo waxgaradkooda iyo aqoon-yahankoodu gabadh isa qaawisay oo horaadadeeda iyo dabadeeda soo qaawisay sida masaajidada looga qunuudo oo looga qayliyo oo baraha bulshada loo soo dhigo oo loo buunbuuniyo yaqaanaan. laakiin gabadh lagu ciyaarayo oo sharafteeda lagu ciyaarayo oo cirdigeeda lagu ciyaarayo oo la rabo in nolosha lagu silciyo sida tan hadda gabadhan walaasheen anfac haysato oo kale ma yaqaanaan sida looga hadlo. anigu waxaan qabaa qofka dhibaatada geystay isaga laga jaro. yaan la raadin xeer dhaqan wax Soomaali la yiraahdo, yaan la raadin si kale oo qofka maaragtay loola macaamilo. waa la yaqaanaa qof kasta dhibaatada geystay. hadda gabadhan anfac qofkii dhibka geystay sawirkiisa bay haysaa oo soo dhigtay baraha bulshada. anigu waxaan qabaa qofka dhibta geystay war isaga laga jaro, isaga la ciqaabo, isaga nolosha lagu dilo, isagoo la silcinaya la soo duubo. ahaan gabdhaha dhibtani ku dhacday waxaan kula talinayaa gacmihiina ku ciilbaxa. cidii dhibta idin geysatay horaa Soomaalidu ugu maahmaaday sir dumar laga masal gaaro. idinka maanta berri saa dambe week bilo war qofka dhibta idin geystay idinku ka aarsada, idinku dhibaatada idin geystay mid lamid u geysta. waana ka xumahay runtii gabadha walaasheen dhibaatada gaadhay. aad baan uga xumay, aad baan uga damqaday iyo kuwii hore labadaba. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.